diiniyan arrimaha marka la gelayo sulaxa iyo cadaaladda ama waa laba option cadaaladii garsoorku waa option suluxuna waa option labaad labada point waa la isku dayay dadka dhexdhexaadinta raba inay ka qayb qaataan laakiin waxba qabiya ah iyaga laftooda wax ka qabiya yihiin arinta hadii halkeeda aan loogu tagin waa dhibaato suuba salaaxuna ma keeno the best solution what's the problem what cause of the problem solution of the problem marka arrinkaas aan isleeyahay xoogaa intii aragtidaada ila waa dalkii aynu lahayn waa xisbiyadeennii qaranka macaarid iyo maxaafidba madaxdeennii qaranka conflict qaran oo siyaasadii maanta galay weey waan arrin aan loo baahnay inay sii socoto marka aragtida haddaan ka dhiibto anoo ku soo dhawaanaya horta diinteena islaamka inaan mar walba ku dabaqnaa waajiba waxa jirta arrimaha garsoorka marka la gelayo dadka galay arrinta dhaliila ay jiraan Soomaalidu waxay tiraa gar laba nin kama wada qosliso labada qof ee wax isu haya mid un baa qaldan midna uu saxin laakiin wad wada saxan tihiin iyo wad wada qaldan tihiin meesha ma taalo problemku waxa weeye dadkan sulaxa doonayay moodayay inay galeen ama odayaashii ha noqoto odayaasha laftoodu qaabkay u soo galeen anoo runtii dee ku ammaanaya dabdamiska ay sameeyeen mudaharaadka markii ay ku baaqeen xisbiyada macaaridku dhibkii ka yimid waynu dareemi karaa odayaashii isxilqaamay iyo culimo awdiinkii waxay ka keeneen in ay dhex galaan arrinkaa wayna ku guulaysteen laakiin waxaan la isku hayo internal weli looma dhaadhicin maxay tahay oo iyaga laftooda waxba qabya ka aan u soo noqdo arrinka waxa weeye haddii la caddayn waayo waxaan la isku hayo dadka loo kala garsoori waayana waa mushkilad weeye arrin lagu imtixaamay nebi dhan oo training la siinayay min allaahi ayaa wuxuu ilaahi rabbi tabaaraka wa tacaala u soo diray laba malag waa nebiyullaahi daawud calayhi salaam labadii malag baa lagu yidhi marka waxa weeye iska dhiga bashar waa imtixaan markaa laga imtixaamayay nebiyullaahi daawud qur-aanka inoogu jirta qisadaas kadib laba noolaale iska dhigeen arrin bay u bandhigeen marka garsoorka waa arrin khuseeya mid ka mid ah hadlo wuxuu yidhi ninkani waa walaalkay muddaci buu noqday markaa wuxuu leeyahay 99 laxaad anna lax kaliya leeyahay laxdii buu leeyahay ugu dar boqolaan kaga dhigtay nabigii baa yidhi igu celi ninkani waa walaalkay walaalaad maxay lax baan leeyahay isna 99 laxaad buu leeyahay laxdii uu lahaa buu leeyahay igu dar boqolaan kaga dhigtay xukun degdeg uu riday markiiba nabiyullaahi daawud ma dulmi saas ma adoo lax kaliya walaalkaan leeyahay 99 laxaad markiiba way ismuujiyeen imtixaanka markaa sidii la doonayay muxuu yeelay nabiyullaahi daawud oo de imtixaan ilaahay ka qaaday buu ahaa oo la bariya cadaaladdu waxay tahay sujuud buu dhacay markuu arkay labadii malag markaa way ismuujiyeen markiiba xakamta nafsak markaasuu istighfaar iyo toobad iyo shukri galay markiiba oo sujuuday waxa weeye garsoorku haddaba waa nooca ummad marka la dhexdhexaadinayo dadka dhexdhexaadinayo shuruudo ayaa waajiba inay buuxiyaan iyaga laftooda marka halkii ninkii dee Soomaaliyada xikmad lahaa yiri hebel waxbaa sheegay hebel kale waxbaa sheegay waxaan leeyahay maanta shakhsi baan ahay bashar aad u daciifa aqoontiisu kooban tahay aragtidiisuna aad u gaaban tahay macnaha waxa weeye dadka faraha badan waxa ay garan waayeen ismalihi waad garanaysaa laakiin wadankayga kalgacayl aan u qabo inta yar oo xil baan qaaday waan dhaarsanahay waa inaan sheego waxa dadku ay ku kala bogsoonayaan xaqiiq marka laga hadlo xaaladda halka maraysa ee loo aanaynayo aan la caddayn weli kana qaldan kana saxan maxaa markaa la garan karaa mar haddii sax iyo qalad baan war labadan gari laba nin kama wada qosliso aanu soo noqdo nuxurka aanu saddexda xisbi ay ismeen yihiin xildhibaan guurti baan ahay oo dhaarsan oo kitaab quraan lagu dhaariyo dalka iyo diinta iyo dadkaba u dhaarteen daacad u ahaa saddexda xisbi qaraway ismeen oo wallahi oo billahi oo tallaahi wayo golaha guurtidu maaha de golaha wakiilada la mid maaha golaha wakiiladu waxay ku soo baxeen doorashooyin iyo nidaamkan policy of democracy-ga ee system of governance-ga adduunka maanta ka shaqeeya laakiin golaha guurtidu waa traditional and religion system oo habkii lagu aasaasay ilaa hadda weli ku taagan yahay oo isbedelkiisu maaha mid doorashooyin gala marka waxaan leeyahay waxbaa meesha ka maqan triangle iyadoo ahbaa laakiin laba inay hayaan la moodaya xalku wuxuu ku jiraa ururada iyo dhowr 20 xubnood ee waxa weeye maxkamadda dastuurka tagay ee loo ansixiyay inay hawshooda qabtaan
وإن تبو هشيسين تاني يوم حن لقوا هذا لي يسلح وإن لقوا طر هدي سد حد حسبوا واحد حيا لما هو حني عد حلقة أوجو مهم سن وحنو أركا أول إلاوي مدحوي سد حد حسبنا إلاوين عد كرسورة سانة قدومي هي قرنا له هو إلاوين والرضا لسكو هايستو وإن لسوف فريسيو قابتا لقوا هذا ليو لقوا قرنقصنا يسوع حكمة باطل هذا قرنقسي هفن قرنقسي قرصور هفن هلا قرواقسي بكو ضبعية ورسيت وحي اللي اسكو هي عديس هي سيبا وحبا كم مقنو ورحبا ميشا كم مقني والكي فرح قالوا لي كلمتي ورحا مقني وإن أرورادن اللي اسكو هايستو لسوف فريسيو قابتا ولقوا درصدو قرشا أولياء لو قرنقي وحوي سدح حزب قرن لبدي حزب معارض يا حزب الحاكم كي marka waa inay fariistaan goobta wada hadalka walba cid marka waxa way diidan iyo cid difaaca saal la arko the best solution ki arrinkaas aan u arkaa